khiyaanada waxay ka sheeg khiyaanada waa shay aanan dhammaanaynin waayo maanta adiga ayaad qof khiyaanaysa laakiin ogow berito adiga ayaa lagu khiyaanaya waqtiga iyo dadka yaa isbedela dadka waxay bareen in waqtigu isbedelayo sidoo kale waqtigana wuxuu i tusay in dadka ay isbedelaan hal shay xasuusnow kuwa anaga naga mid ah marna ma naga tegayaan iyo kuwa naga tega marna ma naga mid ahaynin dadka wanaagsan sidee loo fahmi karaa dadka wanaagsan waa sida buugaagta fiican oo kale buugaagta inay fiican yihiin in kale waxaad ku ogaa kartaa waa markaad akhrisatid oo kaliya sidoo kalena qofka inuu wanaagsan yahay in kale waxaad ku ogaa kartaa waa marka aad la noolaatid oo ayaga aad dhex gashid oo kaliya qaladka haddii anaga aan sameyno isla markii abukaato ayaan noqonaasaan qaladkeena aan isku difaacno laakiin qaladka haddii qof kale uu sameeyo isla markii garsoore ayaan noqonaasaan qaladkaas aan u xukmino saddex qofood oo dadka ka mid ah weligaaga ha ilaawin qofka koowaad waa qof xaalad adag ku geliyay qofka labaadna waa qof xaalad adag ka tegay sidoo kale qofka saddexaadna waa qofka xaaladaas adag ku caawiyay maanta hooyo wax ka sheeg maxaan hooyo ka sheegaa wax walba aan ka sheego kuma filna laakiin hal shay ayaan ka sheegayaa hooyo waxay buuxin kartaa boos walba oo noloshaadii ka bannaan balse booska ayada ka baxdo cidna buuxi kari mayso inaan hadlo iyo inaan dhegaysto midkee fiican horta ma og tahay markaad hadlaysid waxaad ku hadlaysaa waxaad adiga aad ka siisid oo kaliya laakiin markaad dhegaysanaysid waxaa laga yaabaa inaad wax cusub aad baratid marka badan noqo midka dadka kale dhagaysta qof noocee ah ayaan dooranaa haddaad rabtid inaad qof dooratid ha dooranin midka ugu quruxda badan dunida balse waxaad doorataa midka noloshaada mid qurux badan ka dhigaya waayo waxaad la noolaanaysaa ma ahan quruxdiisa balse waa wanaagiisa